waxa ugu muhiimsan takhaatiirtuna ay tilmaameen haddii qofkii caloosha xanuunka intiisa badan wuxuu ka yimaadaa cuntada la cuno oo muxuu ahaa weliba si xad dhaaf loo cuno daaca qurub baa ka yimaada tukhum baa ku yimaada xanuunadan badan ee la sheego dhan sida hepatitis-ka ugu badan yahay raashin buu ka yimaadaa hepatitis-ka noocyadiisa kala duwan A D B D C halkaasuu ka yimaadaa soo dhawaada dhammaantiin maanta waxaan rabaa inaan miisaan ka saarno qaabka ugu fudud ee qofku uu wax u baari karaayo inaan isla fahanno maadaama internetkii ay kusoo bateen dad aad u badan oo iska hadlaaya oo beenta aan ka xishooneynin sidaas darteed google-kii laftirkiisii waxyaalo badan oo beena ninkan oo kale iska soo galaya meesha ku qoraayo hadhowdii article uu iskaga qorayaa uu leeyahay hepatitis-ka dhan waxaa keena cuntada laga qaadaa marka maadaama beentii ay badatay sidee dadka noocan oo kale ah ee beenta u indha adag sidee iskaga difaaci kartaa qaabka ugu horeeya iskaga difaaci karto ayaa waxay tahay inaad ka fogaato oo aadan wax walba oo internetka aad ku aragto ama ka maqasho aadan iska aaminin waa inaad ahaato qof maskaxdiisu furan tahay wax markuu maqlo iska baari karaya iska hubsan karaya waa inaad noqoto qof baa cumaamad wata ama koofi wata ama af carabi ku hadlaaya macnaheedu ma aha qofkaas waxa uu sheegayo waa run macnaheedu ma aha hadda ninkan kitaaba ag yaala cumaamada la wataa dadka badanaa waxaa laga yaabaa inay iska aamini lahaayeen laakiin adiga hadda internetka gal hepatitis-ka maxaa keena cunto lagama qaado waa wax iska cad weeyaan hepatitis-ka waxaa keena virus ayaa keena viruskaas oo jirkaaga markuu galo kadibna saameyn ku yeelanaya kaasaa laga qaadaa waana dhowr nooc waa hepatitis-ka dhowr qaybooda lagu kala qaadaa galmada mid lagu kala qaadaa jirto oo dheecaanka galmada sida AIDS-ka oo kale lagu kala qaado oo virusa jiro dhowr nooc oo kale leeyahay marka wax walba internetka aad ka maqasho isku day inaad baaritaan sameyso oo adiga wax iska hubsato dadka cilmiga u lehna aa wareysato maanta waxaan rabaa marka 3 qaab oo u fudud oo qofku wax u baari karaayo ta u horeysa waxaa weeyaan tan la yiraahdo Google Scholar-ka Google-ka caadiga ah wuu been badan yahay qof walba wax iskaga qoran karaaya marka weliga ha aaminin waxa Google-ka caadiga ku qoran laakiin waxaa jira qayb loogu talagalay cilmiga oo la yiraahdo Google Scholar qaybtaas waxaa ku jira waxyaalo la hubiyay oo la iska baaray oo cilmi ah bas ku jira dadka aqoonta leh bas ayaa wax ku qora joornaalo muhiim ah ayaa ku qoran oo kaliya marka hadaad talaabada u horeysa aad qaadayso waxay tahay inaadan Google-ka caadiga gelin laakiin aad gasho Google Scholar-ka su'aal walba oo rabtaa halka ku qoranaysa markaas waxa dhigi kartaa maxay tahay qatarta caafimaadka ee Ramadaanka uu leeyahay hadaad tiraahdo waxa ku soo baxaya result badan 10730 joornaala ii soo baxay oo aad u badan marka 1700 ma wada akhrin kareysid muhiimadda waxay tahay inaad fahanto topiga muxuu ka hadlayaa soo ciwaanku wuxuu ku siinayaa muhiimadda u horeysa inaad waxan ma ku qancinaya ciwaanka u horeeya akhrinaysa kadib hadduu ciwaanku ku qanciya sii galaysaa markaas sii gashay ciwaanka waxaa jirta qaab kale oo fudud oo wax loo akhriyo waxa u horeeya waxa weeyaan waxa la yiraahdo abstract waxa weeyaan wixii journalka ka hadlayay oo dhan oo la soo koobay waay 3 qaybood u badan marka abstract-ga inuu ka hadlo waay muhiimadiisa wuxuu kaaga sheekeynayaa su'aasha ama ujeedka ay cilmi baaristan u sameeyeen maxay ahayd waa inta u horeyso horta waxa lagu tusinayaa su'aashu maxay tahay ujeedku muxuu yahay lambar 2 waxaa lagu tusinayaa qaabkay wax u sameeyeen muxuu yahay waxaa jira dhowr nooc oo wax loo sameeyaa jirto marka cilmi baarista la sameynayo soo qaabka isticmaaleen muxuu yahay waxa isticmaaleen muxuu yahay iyadana muhiim waay inaad fahanto 3 inaad fahanto wixii u soo baxay dadkan maxaa u soo baxay maxay heleen iyadana muhiim waay waxa u dambeeyo oo jumlada u dambeeysa ay ka hadlaysana waxa waaye ayaga siday la ahayd cilciliskoodu gunaanadkooda muxuu ahaa marka 4 shay hadaa fahanto
journaalkan ama wuu ku qancinayaa ama kuma qancinayo, ama waa sii gelaysaa ama waa kasii soconaysaa. marka intaan waqti badan kaama qaadanayso, 5 daqiiqo waa kusoo koobi kartaa, waa fiirin kartaa, hadduu ku qanco waa geli kartaa markaas. marka journaalada qaab noocaasay marmar u dhigaan. marmar waxaa jirto ay journaaladu qaab kale u dhigaan oo ay ku tusinayaan wixii ay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin oo kale methodkii waa kana, resultigii waa kana ay ku leeyihiin, laakiin waa isla meesha un. marmarna kuma sheegayaan ya, marmarna way ku sheegayaan wixii oo way ku tusinayaan. so adigaa la rabaa marka wixii inaad fahanto. waxaa kaloo jira marka waxaasoo result hadda ma wada akrin kartid, so waxaa samayn kartaa sanadkii aad dooran kartaa. waxaad dhihi kartaa laga soo bilaabo 2010kii aan rabaa, wixii 2010 ka horreeyay ma rabaa dhihi kartaa ya, waa kana laga soo bilaabo 2010kii aa lagu siinaa, waxay noqdeen 1200 ay noqdeen. waa sii yareyn kartaa haddaa rabtid. 2005kii waxaa ka dhigi kartaa 2015kii aa ka dhigi kartaa, way sii yaraatay 636 ay noqdeen. so wixii qaab noocaasa usoo koobi kartaa marka in yaroo muhiim ah oo abaari karto oo isku keeni kartaa kuu soo baxayso. qaabka labaad ee wax loo baaro ayadana waxay tahay website aad u wanaagsan isagana oo wax laga baari karaya wuxuu yahay websiteka la yiraahdo Science Direct. waxaa ku qoran journaalada sayniska ah oo dhanaa lasoo geliyaa. waa wax la hubo, waa wax lasoo baaray oo la hubiyey weeyaan, ma aha wax dad iska qorqoreen ma aha. so asagana sidii oo kale isticmaali kartaa markaa ku dhufato inta u horeysa la akhrine. waxaa lagu leeyahay aim, ujeedka muxuu yahay cilmi baaristan, waa kana waa lagu siiyey ya. methodka isticmaaleen, qaab noocee wax u sameeyeen, waa kana waa lagu siiyey. maxaa usoo baxay, waa kana waa lagu siiyey. gunaanadkooda muxuu yahay, waa kana waa lagu siiyey. intaan lee fahmee haddii aad ku qanacdo, haddii aad ku qancin, haddaa rabto waa ka daba samayn kartaa dadkan. haddaa rabto dadkan aad leedahay beenay sheegayaan, waa ka daba samayn kartaa. su-aasha iyaga weydiiyeen samaysanaysaa, methodkii aa ka daba raacaysaa, waxaa leedahay aniga wax kala ii soo baxay. labadiina waa la fiirinayaa kii been sheegaya markaas. marka cilmigu wuxuu leeyahay maaha aamin looma baahna, waa wax banaanka yaala. wixii waa inaad banaanka keento, waa inaad tiraahdo sidaanaa aan sameeyey, sidaanaa ii soo baxay, sidaanay ila tahay aniga. wixii baa lagaa daba sameynayaa. haddee sidaa sheegaysa ay sax noqotana abaalgud baa lagu siinayaa oo waxa lagu leeyahay wax fiican baa adduunka kusoo kordhisay. haddii aad sidaa sheegaysa ay noqon weydana dib baa loo iskugu laabanaya, waxa lagu leeyahay naga hubi bahasha. marka cilmiga saynisku ma aha sida diinta oo kale oo aad dadka waxaasaa la yidhi intaa iska tiraahdo layska kaa aaminaayo, ma aha. waxaa kaloo jiro iyadana muhiim ah inaad fahanto journaaladu way fara badan yihiin, dhowr nooc ay kala leeyihiin. waxaa jiro journaal research iska ah, qof baa su-aal isweydiinaya, su-aashii wuu baarayaa, waxbaa usoo baxaaya, waa iska research waay. waxaa kaloo jira marka review wax la yirahdo. reviewga waxaa waaye researchyada dadka sameeyeen ya oo dhanaa baaraysaa. tusaale ahaan maanta waxaan leeyahay aniga waxaan rabaa inaan ogaado dadka maxay ka qoreen cudurka macaanka iyo ramadaanka maxaa iska galay ya. ramadaanka cudurka macaanka ah ma kor u kacaa, ma hoos u dhacaa, maxay tahay xiriirka ka dhexeeyo. so internetkan galayaa, ramadaan aan mataqaanaa cudurka macaanka diabetic aan dhahayaa, wixii ii soo baxaan isku koobaya. markaas wixii markaan isku kooba waxaa la yiraahdaa review. macnaha waa koobidda marka aaday u fiican tahay markaa weliba arday tahay oo su-aal macalinka kuu soo dhiibay aa rabta inaad baadho. reviewgu waa shay aad muhiim u ah, maxaa yeele wuxuu ku siinayaa cilmi baaris badan oo laysku keenay ayuu ku siinayaa. so waxaa helaysaa waqti badan aa wax ku qorto. waxaa leedahay hebel saanuu yiri ya, hebelna saanuu yiri, anigana saanay ila tahay ya. waa qaabka ugu wanaagsan inaad dadka waxay sheegeenna aad tiraahdo hebel saanuu qabaa, hebelna sidaanuu qabaa, anigana saanay ila tahay. oo keliya ma aha, waa inaad sababta ay adiga saa kula tahayna waa inaad sheegto, inaad tiraahdo aniga saanay ila tahay maxaa yeelay sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan. waa inaad keento sababihii aad adiga u qaadatay go-aankaas, waa inaad meesha soo dhigto. macalinka taasuu qiimeynaya. waxaa kaloo jira mid kaloo iyadana la yiraahdo web of science la yiraahdo ama web of knowledge. iyadana
qaab noocaas oo kale halkaasaa ku qoraysaa sanadka aad rabtaa dooranaysaa journaalka aad rabtaa dooranaysaa articleka nooca aad rabto ma waxaa rabtaa letter miyaa rabtaa review miyaa rabtaa article miyaa rabtaa adaa dooranaysid marka waxaa habboon inaad had iyo jeer feejignaato internetka beentiisa badatay dad badanaa isku dayaya dadka inay ka faa'iidaystaan oo been u sheegaan so adiga waxaa lagaa rabaa inaad noqoto qof feejigan qof wax baari kara aqoontii berigii hore wax la xifdin jirayna waa laga gudbay berigii hore aqoontu waxay ahayd in macallinku sabuurada intuu yiraahdo dadka wax u meeriyo dhalinyarada ardaydan wixii xifdiyaan ay noqdaan jawaan wax lagu shubtay maanta waa laga tagay taas maanta jaamacadaha iyo iskoolada xifdin muhiim ma aha muhiimadda waxay tahay in ardayda la diyaariyo ardaygu markuu jaamacad ka qalin jabiyo maanta waa inuu awood u yeesho topic walba uu rabo inuu baaran karaayo asaga wax walba uu rabo inuu isaga raadsan karaayo sidaas darteed hadda jaamacadaha macallinku imtixaanada iyo soo xifdi waa la iska daayay su'aalun baa lagu siinayaa wuxuu leeyahay soo baadh macallinku wuxuu fiirinayaa qaabka wax u baarayso qaabka wax isku keenayso qaabka jawaabaha u bixinayso intaas waa muhiim ah maxaa yeelay adduunku waa isbedelay sidoo hore ma aha marka waxaa la rabaa ardayda in la kobciyo oo loo diyaariyo ardaygu markuu jaamacadda dhamay inuu diyaar u noqdo inuu wax baaran karaayo inuu shaqaysan karaayo ya nooc walba shaqo walba inuu qabsan karaayo in loo diyaariyo marka waa laga tagay wixii xifdintii ka soo bax iyo waxaas waa laga tagay maskaxda waxaa la ogaaday inay maskaxda aysan u fiicneen qofku inuusan horumar gaaraynin waana tan keenaysa hadda muslimiintu inay dib dhac noqdaan maxaa yeelay ayagoo yaryar baa quraan xifdi la leeyahay waa lagu garaacayaa waa lagu dilayaa qofkii oo weyn ya ayaad arkaysaa oona diyaarsanayn noloshii adduunka uma diyaarsana asaga dhan waa cabsanayaa iskuma kalsoona wax ma baaran karaayo ma fakiri karaayo marka waa dhibaatada laga soo gudba waaye marka adinkana saasoo kale waxaan rabaa inaad noqotaan inaad ka gudubtaan dhibaatadii markaan yareen nul ku sameeyey inaad maanta u noqotaan dad diyaar u ah noloshan adduunka ah ee casriga inaan la qabsano wixii aan maqasho inaadan iska qaadanin ee iska baari karayso iska hubsan karayso si cilmiyan ah weliba aad wixii iska hubsan karayso markaas waxaa noqonaysaa qof diyaar nolosha u ah adduunka diyaar u ah aan laga faa'iidaysanaynin marka qaabka noocan oo kale saddexdaas website waa saddex website oo aad iyo aad muhiim u ah Web of Science, Science Direct iyo Google Scholar saddexdaas badankoodana waa free weeyaan haddii aad rabto inaad sii gashana waxaa weeyaan qof ayaa dhihi kartaa iisoo print gareeya ama iisoo copy ayaad oran karaysaa marka waxaa leeyahay dhammaan asxaabta hala dadaalo internetka la iska ilaaliyo beentiisa badan maskaxdiina had iyo jeer hala furo inaa wax badan akhris isku day inaa wax badan ka faa'iido waxaan dhan free waa hadda waxaan oo dhan inaa waqtigeena ka faa'iideysano waa shay muhiim ah in maanta dhan Facebook lagu jiro waqtiga maalayacna lagu dilo waa laga fiican yahay marka waqtiga laga faa'iideysto guul baan idin rajeynayaa dhammaantiin صدق العلم وكذب المتدين